wararka ka imanaya waqooyi bari Shiinaha ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 7 qof ay dhinteen kadib markii nin toorey ku hubaysanay uu weerar ka geystay halkaasi sida ay sheegayaan ilo xogogaal oo laga helay halkaasi 7 qof oo kale ayaa lagu soo warramaya inay ku dhaawacmeen weerarkaasi ayaa ka dhacay Kayunyang oo ah magaalo yar oo ku taala gobolka Liaoning booliiska Shiinaha ayaa xidhay qofkii weerarkaasi looga shakisnaa sida ay ku warantay wakaalada wararka Shiinaha ee Xinhua inkastoo aan la ogeyn ujeedada ka dambaysa weerarkaasi ilaa hadda goobjoogayaasha ayaa warbaahinta u sheegay inay arkayeen nin dadka toori la dhacaya dambiyada rabshadaha wata ayaa si dhif iyo naadir uga dhaca dalka Shiinaha balse waxaa dalkaasi sanadihii la soo dhaafay ka dhacayay weeraro toori loo adeegsanayay inta badan weerarada loo adeegsado mindida ee ka dhaca dalka Shiinaha ayaa waxa geysta dad aan dhimir ahaan fayoobayn amaba doonaya inay ka aargoostaan saraakiil iyo shakhsiyaad ay yaqaanaan balse weerarkani ugu dambeeyay ee ka dhacay Shiinaha ayaa booliisku waxay sheegeen in hal sarkaal u dhaawacmay xilli uu ka hortagayay eedaysanaha ilaa hadda ma jiraan wax faahfaahino dheeraad ah oo laga hayo khasaaraha kale ee weerarkaasi ka dhashay mid ka mid ah dadkii goobjoogayaasha ka ahaa falkani ayaa u sheegay wargeeska Hong Kong South China Morning Post in weerarku uu ka bilowday dibadda hore ee goob iskuul ah isla markaana dadka la beegsaday badankoodu ay ahaayeen dad dhexaad ah kuwaasi oo iskugu jiray rag iyo haween haweeney iyaduna goobjoogayaasha ka mid ahayd ayaa u sheegtay wargeeska SCMP in nasiib wanaag uu dugsigu fasax ahaa haddii kale dhimashada iyo dhaawacuba uu intaasi ka badnaan lahaa Axmed Maxamuud Yuusuf Television ka saab hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa Telesom